kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha ah oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillahi raxmaani raxiim. Siyaasadda socdaalka, rabshadihii bishii Janaayo 6deedii, guryeynta magangelyadoonka iyo weliba xabad joojinta Gaza. kala wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin Jimcaha bisha Janaayo ay tahay 24 waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan uu idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan. Tana kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. Amaro ku saabsan socdaalka. Maalmihii ugu horreeyay xilligiisa labaad ayaa madaxweynaha Donald Trump waxa uu qaaday dhowr tallaabo oo fulineed oo uu isagu ku xadidayo socdaalka. Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo heer qaran ah xuduudda koonfureed ee waddanku la wadaago Mexico, isagoo inta badanna xiray hanaankii magangelyadoonka waxaana hakiyey barnaamijyadii qaabilaadda qaxootiga ee federaalka. mid ka mid ah haddaba amarada ugu adag ayaa waxa uu yahay amar isagu faraya in hay-adaha federaalka ay joojiyaan bixinta dhalashooyinka dadka iyagu ku dhashay dowladda Maraykanka ee ay dhaleen dadaan muwaadiniin ahayn. Amarkani waxa uu sii wadaa ballanqaadyo horey uu sameeyey Trump markii uu ololaha doorashada ku jiray, kaasoo isagu markaa ku saabsanaa waxa loo yaqaano jinsiyadaha ku dhalashada, taasoo la micnaa in dhammaan dadka Maraykanka ku dhashay ay xaq u leeyihiin inay jinsiyadda helaan. Maine iyo 20 gobol oo kale ayaa iyagu arrintaa ka gudbiyeen dacwad ay kaga soo horjeedaan oo ay sheegayaan in xeerkani isagu duminayo dastuurka. Rabshadihii January 6deedii, Trump waxaa kale uu fuliyey ballanqaadkii uu ololaha xilligii ku jiray sameeyey ee uu ku ballanqaaday inuu cafis u fidin doono dadkii u xidhnaa rabshadihii ka dhacay golaha baarlamaanka Capitolka loo yaqaano Maraykanka sanadkii 2021, kaasoo isagu ku saabsanaa isku day la doonaya in lagu joojiyo doorashadii 2020. ilaa iyo 1500 oo iyagu arrimahaas u xidhnaa oo dembiyo lagu helay ayaa ka mid ahaa dadka uu cafiska u fidiyey. taasna waxaa ku jira 15 qof oo reer Maine ah. 11 ka mid ah dadkaas reer Maine waxaa horey loogu xukumay dembiga oo ay ku jiraan qaar lagu helay faldembiyeedyo iyagu ku saabsan inay weerar ku qaadeen askartii bilayska ahayd ee goobta ilaalinaysay. wufuudda Kongareeska ama wafdiga Kongareeska ee gobolka Maine ka taga dowladda federaalka ayaa waxay ka bixiyeen falcelino kala duwan oo arrintaa ku saabsan, iyadoo wakiilka Shelley Pingree ay arrintaa aad u cambaaraysay. Senator Collins iyadu waxa ay sheegtay in dad badan oo dadkaas ka mid yihiin laga yaabo inay xaq u lahayn in loo naxariisto, laakiin ayna kuwaas ku jirin dadka iyagu weerarka ku qaaday bilayska ama falal dembiyeedyo colaadeed geystay. Hoyga magangelyadoonka. Saraakiisha gobolka ayaa waxay sheegeen inay u badan tahay inay joojin doonaan barnaamijkii guryeynta ku meel gaarka ah ee magangelyadoonka dhammaadka sanadkan, iyagoo ay sabab arrintaas uga dhigeen caqabado ku saabsan xagga miisaaniyadda iyo socdaalka oo yaraaday. laga soo bilaabo sanadkii 2022, hay-adda Maine Housing waxa ay kareysatay hotel ku yaala magaalada Saco si uu noqdo xarun dib-u-dejineed oo loogu talagalay magangelyadoonka, iyadoo ay siisay hoy rasmi ah in ka badan 700 oo qof muddadaas iyada ahayd. wakaaladdu waxa ay qandaraas ku siisaa Catholic Charities si ay u qabato howl maalmeedyada kuwaas oo ay ku jiraan barnaamijyada tababarka shaqada, barnaamijyada barashada luqada iyo weliba caawinta helista guryaha joogtada ah. laakiin iyadoo ay yaraatay magangelyadoonka imanaya gobolka, islamarkaana gobolka Maine ay waajahday xaalad miisaaniyadeed oo adag, ayaa xafiiska barasaabka ee hal-abuurka iyo siyaasadda mustaqbalka xafiiska loo yaqaano wuxuu sheegay in $6 milyan oo kharashka sanadeedka barnaamijka lagu bixinayay aan la hubin in la heli doono. xabad joojinta Gaza. kadib markii Israa'iil iyo Xamaas ay gaareen xabad joojin, ayaa Falastiiniyiinta ay rajo ka qabaan in la soo afjaro colaadii socotay 15 bilood. wakaaladda wararka AP ayaa waxay sheegtay in dabaaldegyo ay ka bilowdeen aagaga dagaalkaas kadib markii lagu dhawaaqay xabad joojintaas, iyadoo Falastiiniyiintuna qaarkood ay bilaabeen inay ku laabtaan guryahoodii.
isbahaysiga Maine ee Falastiin oo ah 20 urur oo iyagu isku bahaystay si ay mas'uuliyiinta Mareykanka ugu booriyaan inay taageeraan xabad joojinta isla markaana ay hubiyaan inaan Israa'iil la hubaynin ayaa waxay sheegeen inay rajo ka qabaan heshiiskan balse uu yahay mid aad u jilicsan. ururka Xamaas ayaa sidoo kale wuxuu bilaabay inuu sii daayo lahaystayaal ay ka qabsadeen Israa'iil oo weli lagu haystay aaga Gaza. Daawadeel halkaad nagala socoteen waa Main Public News Connect. intaas iyo sarag dambe waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suuro geliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Ku iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Main Public News Connect waxaa suuro geliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Seaport Credit Union waxaa ka go'an daryeelka dhaqaale ee dadka reer Maine oo ay ka shaqaynayeen tan iyo 1931. waxay xarumo ku leeyihiin Augusta, Scarborough, Portland, waxayna dhowaan furi doonaan mid ku taal Lewiston. seaportcu.org. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ognahay in lahaanshaha gurigu uu yahay furaha. barnaamijka qofka ugu horreeyay qoyska ee Maine waa barnaamij fursad u siinaya inay guri helaan dadkii horay aan guri qoyskooda u yeelan. waa suurtagal inaad guri yeelato. faahfaahin dheeraada kala soco mainhousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor mainconnection.gov.